filimkeena maanta wuxuu ka waramayaa laba saaxiib oo ku xaninimay gaari jaban kadib markii dunida inteeda kale uu ka dilaacay cudurka zombiga. dhammaan dadkiina ay zombi isku wada bedeleen. gaarigoodu ma aha mid shaqeynayo, mana ay awoodaan inay hagaajiyaan, waxayna halkaas ku xaniban yihiin muddo 3 maalin ah. baahidoodiina waa ay ka dhamaatay. talow ma ka bixi doonaan dhammaysta filimka? filimkan wuxuu ku bilaabanayaa adduunka dhan oo ay burburiyeen zombiyo, waxaana la baraa laba saaxiib oo lagu kala magacaabo Mickey iyo Ben. labadooduna waxay ka mid yihiin dadka tirada ee ka badbaada cudurka zombiga, waxayna ku qasban yihiin inay dhex maraan keymaha iyo gobollada New England si ay u helaan cunto iyo meel ku badbaadaan. sidoo kalena mar walba waa inay iska difaacaan zombi dhigdoon ah. Ben si dhaqsi leh ayuu ula qabsaday noloshan cusub, wuxuuna bartay sida loo dilo zombiga iyo sida cuntada loo soo helo, isagoona adeegsanaya xirfado fudud. halka Mickey oo noqda cagsiga, kaasoo aad u jecel inuu heesaa iska dhageysto. aflaas saacna waxay dhagaha ugu jira iPhone, wuxuuna ka baqaa qabashada hubka. sidoo kale wuxuu jecel yahay inuu iska baashaalo. maalmaha kamid ah ayagoo sida caadada ahayd safarooda ku jira, waxay helaan gaari weliba meel cidla ah, waxaana uga soo dhex baxda haweeney zombi ah. Ben dhacdadaas si degdeg ah ayuu uga falcelinayaa, wuxuuna isla markiiba madax ka tooganayaa naagtii. nasiib wanaaggoodana gaarigii waa u shaqeeyaa, waxayna bilaabeen inay safarkooda sii wataan. Mickey ayaa saaxiibkiis wuxuu usoo jeedinayaa inay ku istaagaan guriga saaxiibadiisii hore oo zombi isku bedeshay, si ay halkaas sahay uga raadsadaan, taasoo ay jid kusii maraan. Ben ayaa bilaabay inuu hubiyo inuu guriga joogo zombi iyo in kale. markii ay ka waayaan, waxa ay galaan qolka Mickey saaxiibadiisii hore. Mickey ayaa galaya xasuus hore, isagoona bilaabay inuu carabsaday dharkeedii iyo baraafuunadeedii, halka Ben uu diiradda saaray inuu qaato keliya waxyaabaha faa'iidada u leh safarkooda. waxa ayna halkaasi ka qaataan bustayaal iyo barkimo si ay gaariga ugu dhex seexdaan. Mickey wuxuu saaxiibkiisa u sheegay inuu aad ugu daalay safarkan iyo cidlada, wuxuuna saaxiibkiisa ku qancinayaa inay muddo joogaan guriga. balse Ben ayaa wuxuu bilaabayaa inuu saaxiibkiisa soo xasuusiyo in meel lagu nagaado aysan ahayn ammaan, waxayna sababi kartaa inay zombi badan soo weeraraan, isagoona dhacdo hore soo xasuusinayo bilowgii musiibada. markii zombigu soo baxeen, waxay isku hareereeyeen guriga Mickey muddo 3 bilood ah, iyagoo la joogay qoyskiisa oo dhan. intay dhacdadaas ku jireen, cuntadii ayaa ka dhamaatay, waxa ayna galeen cadaab ilaa Mickey uu dilay eeyihiisa si aysan qoyskiisa u gaajoon. ilaa ugu dambeyntii zombigu ay guriga soo galeen, waxaana halkaas ka badbaaday Mickey iyo Ben oo keliya. intaas kadib Mickey waa uu ogolaaday inaysan hal meel ku nagaadin, ayna sii socdaan. waxa ay sii wadanayeen safarkooda. maalmaha kamid ah, Mickey ayaa wuxuu helayaa cod qaybiye, wuxuuna gelinayaa bateriyaal oo kasoo helay guriga saaxiibadiisa, uuna tijaabinayaa, wuxuuna si lama filaan ah u maqlayaa codadkaasi oo ah kuwa dad kale oo ka badbaaday zombiska. codkana waxaan ka fahmaynaa dadkaasi inay joogaan meel nabdoon, waxayna ka hadlayeen liiska waxyaabaha ay soo iibsan doonaan. waxa ay dhigtaan dhalashooyin, waxa ayna daawadaan filmaan, waxayna isku haystaan cunto iyo hoy nabdoon. Mickeyna wuxuu ku farxayaa inuu markii ugu horeysay maqlayo cod dad kale, isagoona iska dhaadhicinaya dadkaasi inay u dhow yihiin. Mickey wuxuu bilaabayaa inuu la hadlo si uu uga codsado inay kusoo biiraan, balse waxa u jawaabaya cod nin aad u qallafsan. Mickeyna isagoo xaalad quusi dareemaya ayaa wadahadal kala jira. Ben waa uu aqbalay diidmadaasi, wuxuuna saaxiibkiis kula taliyaa inuu iska iloobo, balse Mickey arrinkaasi ma aqbalo, wuxuuna bilaabayaa inuu kusii celceliyo koolka. Ben wuxuu bilaabay inuu ku kaftamo saaxiibkiisa Mickey, isagoona ku dhahay waxaad ka heshay gabadhii kula hadlaysay ee lagu magacaabaya Anna, taasoo ahayd gabar koolka ku jirtay. wuxuuna ku dhahayaa waxa aad sawirtay gabadhaasoo ah mid qurux badan, sidoo kalena xaaskaaga noqoto, taasoona ugu dambeyn inta u imaado isaga meeshan ka badbaadin doonto. Ben wuxuu saaxiibkiisa kula taliyaa inuu si waaqici u noolaado, khiyaaligana uu iska dhaafo. si ay u soo socdeen, ugu dambeyn waxay soo gaarayaan hotel cidla ah. Mickey markuu bilaabay inuu baaro dhismaha, wuxuu ogaadaa inay zombies ku jiraan. Ben wuxuu ku khasbanaadaa inuu saaxiibkiisa difaaco, isagoo dilay zombiga, wuxuuna isku dayaa inuu Mickey baro sida zombiska loo dilo, balse Mickey ayaa ka cagajiiday. dhacdadaas kadib, maalin kale waxaan aragnaa Ben oo usoo baxaya inuu soo dabaasho, halkii Mickey oo iska dhex jiifta gaariga, waxaana u imaanaysa haweeney zombi ah. ugu dambeyn Mickey wuxuu soo baraarugayaa haweeneydii zombiga ee u soo dhawaatay, isagana cabsi ayuu la gariirayaa, mana oga waxa uu samayn doono, ilaa zombigii uu ku dhow inuu daaqad soo jabiyo uu gadaal ooga imaado Ben, isagoona halkaas ugu dilayo. sidoo kale Mickey ayaa wuxuu ku adkaysanayaa inay caawa ku hoydaan guri, Benna arrinkaas uu ku ogolaanayaa. Benna saaxiibkiisa wuxuu ka qaadayaa dhagaha, isagoona u sheegaya inuu bateriyada dhameeyay, isla markaana muusiga codkiisa uu aad u dheereeyo, taasoo noloshooda khatar geli karta maadaama aysan maqlaynin markuu zombiga soo socdo. Mickey oo xanaaqsan ayaa banaanka usoo baxaya, wuxuuna bilaabayaa inuu isku dayo inuu la xiriiro Anna. wicitaan dheer kadib, ugu dambeyn Anna ayaa ka qabanaysa, iyadoona u sheegayso wicitaanka ay isaga la hadlaysa inay halis geli karto joogitaankeeda, in meesha laga soo musaafiriyana ay dhici karto. sidoo kalena Anna waxay u sharaxaysaa xerada inaysan ahayn siduu u maleynayo, ayna ka adag tahay, waxayna kula talisaa inuu banaankiisa iska joogo uusan kusoo biirin. intaas kadib waxaan aragnaa Ben oo ogolaaday inuu u raaxeeyo naftiisa, isagoona bilaabay inuu dhegihii gishto, muusigna daarto, wuxuuna bilaabay inuu ku dhex dhaansigareeyo guriga dhexdiisa. intaas kadib Ben wuxuu maqlaa codad shakil, wuxuuna soo aadaa dhanka qolka saaxiibkiisa. markuu arko
saaxiibkiisa oo hurdo wuxuu go'aansadaa inuu siiyo cashar nololeed aad u weyn kaas oo ka tababaraya naftiisa wuxuuna bilaabayaa inuu soo agdhigo usha lagu dheelo baseballka. intaas kadibna zombie ayuu banaanka kasoo qabanaya wuxuuna qolka usoo gelinayaa saaxiibkiisa isagoo albaabka kor oga xirayo. Miggy ayaa wuxuu bilaabayaa inuu qolka kasoo dhex qaliyo isagoo saaxiibkiisa ka codsanaya inuu albaabka ka furo balse Ben arrinkaas kama aqbalayo wuxuuna u sheegayaa inuu iska celiyo. daqiiqado kadib Ben markuu albaabka furo wuxuu arkaa saaxiibkiisa oo wada dhiiga isagoona ka takhaluso zombiga balse Miggy oo xanaaqsan ayaa wuxuu bilaabayaa inuu weerar kusoo qaado saaxiibkiisa isagoona si kal iyo laabo u garaacayo. si kastaba ha ahaatee Ben wuxuu ku faraxsan yahay saaxiibkiisa casharka uu qaatay iyo inuu dilo markii ugu horeysay zombie. intaas kadibna waxay bilaabeen inay sii wataan safarkooda iyagoona ku raaxaysanayaan dhulka dabiiciga ah iyo kalluumaysi waxayna dheelayaan baseball sidoo kalena waxay aad ugu sheekaysanayaan safarka dhexdooda. intaas kadib waxa ay helaan gaari kale oo meel cidlo ah yaallo. Ben wuxuu doonayaa inay gaarigan ka shubtaan shidaal halka Miggy markuu gaariga afkiisa hore taabtan uu ogaanayo inuu kulyaha taasoo muujinaysa gaarigan inuu qof watay. si lama filaan nin aanan la aqoon ayaa gadaal ooga imaanaya Miggy wuxuuna bilaabaya inuu toore dhuunta ooga qabto waxauna dalbanaya in lagu soo wareejiyo furaha gaariga haddii kale uu dili doono Miggy. Ben wuxuu isku dayayaa inuu ninka hadal ku qanciyo balse ma yeelayo. Ben wuxuu bilaabayaa inuu qiyaameeyo ninkii isagoona u sheegayo furayaasha inay dhex yaalliin gaariga. ninkiina wuxuu sii deynayaa Miggy isagoona bilaabaya gaariga inuu dhex galo balse furayaashu waxay ku dhex jiraan Ben jeebkiisa. ninkiina markuu ogaado khiyaanada wuxuu bilaabayaa inuu naftiisa la cararo balse Ben ayaa tooganayo. arrinkaasina Miggy aad ayuu u argagaxaya waxaana isla waqti yar kadib goobta imaanaya gaari ay wateen gabar qurux badan iyo nin feerweynaah oo hubeysan. gabadhaasina waa Anna waxayna Ben weydiinaysaa gaarigan cidda wadatay isagoona wuxuu u sheegayaa ninkii watay inuu zombie isku bedelay balse iyada xaqiiqada ayay ogaanaysaa ninka ay dileena wuxuu ahaa mid ay iyaga ku daba jireen. arrinkaas dartiisna lugta ay ka toogataa Ben waxayna ugu hanjabtaa inay dili doonto haddii ay soo daba raacaan. sidoo kalena furayaashii waxay oga dhex tuurtaa cooska dhexdiisa waa ayna ka tagtaa. Miggy ilaa fiidkii furaha gaariga ayuu cooska dhex raadinaya halka saaxiibkiisana gaariga uu joogo balse ugu dambeyn waa uu ka weynaya waa ay niyadjabayaan. marka la gaaro habeenkiina gaarigii ay ku jireen waxaa hareereynaya zombie. Ben dhaawiciisa dartiisa labadooda uma suurtogelayso inay baxsadaan saacado badan ayaan halkaas ugu jirayaan. waxay isku dayayaan inay daaqada gaariga maro ku dadaan si uu zombiga u baxo. zombiguna waxay ogyihiin kuwa gaajaysan oo aanu doonayn inuu jaaniskaani dhaafo kamana dhaqaaqayaan meesha. labada saaxiibna in muddo ah ay gaariga ku dhex hayrnaanayaan waxaana cad inay sahayda kasii dhammaanayso tabartoodana ay sii yaraanayso. Ben wuxuu soo jeedinayaa fikir ah inuu saaxiibkiisa baxsado isagana ha dhinto haddii uu rabe balse Miggy oo saaxiibtinimada ku weynta wuxuu u sheegayaa inuusan sinaba uga tegi karin. furayaasha ayuu raadin doonaa saaxiibkiisana dib ayuu ugu soo noqon doonaa. Miggy ayaa geesinimo iska baaraya ugu dambeynna wuxuu ka dhex baxayaa gaariga. muddaha ayuu maqan yahay Benna ma oga waxa saaxiibkiisa ku dhaca cabsi ayuuna dareemayaa isagoona ka walwalaya saaxiibkiisa xaaladdu ku sugan yahay. banaankan wuxuu ka maqlaa cabaadka iyo qaylada zombiga waxa uuna aaminaa saaxiibkiisa in lagu kala baxo balse xoogaa kadib waxa uu dareemaa in gaariga saaxiibkiisa oo gargaraacayo markuu kor ka furana wuxuu ogaanaya saaxiibkiisa inay qaniyo ku taalo. halkaasina waxaa ka cad xoogaa kadib inuu saaxiibkiisa zombie isku bedeli doono. Ben saacadaas wuxuu garwaaqsadaa rajadii inay dhammaatay hal xal kaliya uu jiro saaxiibkiisana si uusan zombie isku bedelin waa inuu madax ka toogtaa. saaxiibadii isla soo jaba nolosha adagna isla soo maray maanta xalka u furan kaliya waa inuu midkood geeriyoodaa si uu kan kalena u noolaado. Ben oo indhiisa laga akhrisanaya cabsi iyo murugo ayaa wuxuu madax ka toogtaa saaxiibkiisa isagoo mooraal jabsan ayuu wuxuu go'aansanaya inuusan nolosha u joojin uuna sii socdo. waxa uu taleefanka ka wacaa Anna isagoona u sheegaya maalin inuu soo heli doono sidoo kalena madaxa uu ka toogan doono si uu saaxiibkiisa ugu aargudo isagoona bilaabaya gaariga inuu ka fajiyo bustayaasha wuxuuna soo jeedinayaa dareenka zombiiska. markay dhinaca gaariga soo aadaanna gadaal ayuu ka baxaya. filimka dhammaadkiisana waxaan aragnaa Ben oo keligiisa socday sidoo kalena gadaashiisa ay joogaan zombiyo badan. magaca filimku waa The Battery. haddii aad ka heshay ilooyin inaad muuqaalka like saarto channelkana subscribe dhahto sugo muuqaalkan kiisa xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.